guurka iyo tirtirsiintiisu waa wax naftu iska jeceshayba marka hore oo iyadoo cunno lagu tirtirsiiyey wax cun haddii lagu idhaa ka war awal baad u heellanayd guurkuna waa sidoo kale laakiin dhaqanka qofka muslimka ah guriguu ka muuqdaa umamkuna jiritaanka ummadeedna waa guryo laysu geegeeyey guryuhu hadday degan yihiin oo xasiloon yihiin oo ilaahay cabsidiisa ay ku maran tahay ummadoo dhan baa xasilaysa guryuhu hadday karayaanna waxay u badan tahay inaan dadkuna degin sideedabana bini aadamku xuquuq kuma wada socdo xuquuqda waa wax adag haddii lagu yidhaahdo xaqayga halkaa dhig adna xaqiisa halkaa dhig laba qofoo bini aadami waa adagta laakiin bini aadamku wuxuu ku wada socdaa in lays ixtiraamo oo laysu tanaasulo oo lays dhammaystiro oo dadku ay isdhammaystiraan sida daraaddeed xuquuqda qur-aanka ku soo aroortay ama sunnada ku soo aroortay inta badan waa xuquuq si mutlaqa u warramaysa oo wacaashiruuhunna bilmacruuf baa ilaahay leeyahy wacaashiruuhunna bilmacruuf haweenka waxaa kula dhaqantaan baa ilaahay leeyahy macruuf wax curfiga ku fiican oo la garanayo sama kula dhaqma samahaasi wuu joogayaa xataa marka la kala tegaya baa ilaahay ku tilmaamay faidaa balagna ajalahunna faamsikuuhunna bimacruufin aw faariquuhunna bimacruuf baa la yidhi xataa hadday kala teg gaadho waa in macruuf lagu kala tagaa marka asalku waa in macruufkaa lagu wada joogaa ninka iyo gabadha xuquuqda ka dhaxaysa badh waa xuquuq maadiya حقوق مادية ومثلا صداق باكوغو واجبي نفقة كوغو واجبتي سكن باكوغو واجبي يد فراش باكو واجبي وحاصل دم هو حقوق مادية وحنا وحقوق كجديسان مادة أو أهرقن يا أخلاق يا بني آدم كسودو ودا جوغي كرو بني آدم كو حقوق ودا جوغا وأخلاق ده markay dhalintu isguursanayso waxaa qof waliba كريم بوس مريا لبنتي سوشيغا انت هذا جعجعورنمدا واد قرصتاون سوما عيد كورو سو قادو ترادا اينهانا وان لي ما جرتو نين وليبا فريدنimadiis iyo inuu ragga ka laga qaatay yahay buu sheegaa habluhuna sidoo kale laakiin marka guriga la tago real life baa la galaa nolosha dhabta kuma tahay markaas la ogaanaya Soomaalidu maxay ku mahmaahi jirtay jid ma la martay جدين ولا عنت شبد ما لدك تبيد هذا وودي عمر لقى نقل جرين وفكو واحد برنكر تابيد هذا مركا اتصفر وذا قشان اداني سوكين حدا واحد كان حيان اما مركا شبد وذا دكتان بيد هذا مركا اسكو دغان نقطان تقفك الدمر اسكو دغان با نقطين وليربا وذا هويتين سدردد حقوق بدن بدن بالسكولي ننكونا وعاشرهن بالمعروف بالليل يدنا وحليل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يعني انت الاولى ان لم يدو معروف بيلاده وللرجال درجه ومركله المام ننكم مد اراده بوليه او محي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله ايدا سنتي المامس رجالكو waxay dheeriin gabadha quri wax weeyaan marka guriga la joogo inay qiwaamatul bayt leeyihiin guriga maamulkiisa inay leeyihiin waxaan idhaahdaa idaarada reer galbeed iyo sida wax loo maamulo aad bay ugu guulaysteen meel qura shirkad qura bay diideen idaaradeedii shirkadaasina way ka burburtay galbeed oo dhan galbeedka marka nimankan reer galbeed ee culuumul idaara inoo soo waariday ee waxaan la daraaseeyay tirada badan la keenay هذي شركات هذي دولة هذي مؤسسات هذي سيستم إداري هذي أورجانيزيشن سيستم إداري هذا في عم بيلاقينا هيراركي له كلا كورية عندنا ما مشوا
cidina taxadka ku jirto oo dabeetana la kala dambeeyo meel bay diideen in la kala dambeeyo waa gurigu kala sarreyn ma laha bay yidhahdeen ninkii gabadhu iska siman yihiin dabeetana wuu burbura shirkad aan kala sarreyn lahayn ma socoto wax jiri kara maaha ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحتى المامي صدح قف هداتنا ما لعد لا جوكتان أمير ياش هذا سفر كشرتان أمير سمايس تبع بن آدم كهدو وذا النولي هيبة وين شرتا عد وحدارين عد وحمامول يسوين شرتا سناني ما شرتو لقى هذا لما يبن آدم لماذا ما كسي منا ها أدقي ما دحوينه بن آدم لماذا ما كسي منتين لكن سلطة لا يدراده والله إجمدي إنه سلطة داسي هيو guriga sultadiisa waxay gacanta ugu jirtaa ninka hadday sulta timaadana maamul hadduu yimaadana maxaa ka waajiba taaca maamul aan la adeecayni ma jiro hadii la yidhahdo shirkadda nin baa maamula laakiin shaqaalu ku yeeli maayaan mayay shirkad soconaysa noqonaysaa dii maamul yimaadana waa in taaca timaada sidaa ogeed baa qur-aanku wuxuu tilmaamayaa rijaalku iyagaa qiwaamatlbeyt leh maamulka guriga iyagaa leh dumarkana markaa waxa korkooda saaran taaca inay la yimaadaan wuxuu nabigu alayhi salaatu wasalaam haddaan cid uun faraya inay cid u sujuuddo gabadhaan odhan lahaa ninkaaga u sujuud macnaheedu waxa weeyaan inay taaca mutlaqa oo bilmacruufa oo la timaado ayaa iyana saaran haddii inaha la waayo in ninkuna dhaqan fiican guriga kula dhaqmo oo dhaqanka fiican inagu xagga lacagtun baynu ka naqaanaa ninka reerka biil fiican siiya waxaa fiican siiya waxaynu moodnaa inuu nin fariida yahay laakiin maadada maaha maadada waxa ka fiican dhaqanka kale wax allaaliya waxay diintu ina fartay waxa ugu horeeya ciddan aa wada nooshiin hadday naxariistay hadday cafis tahay hadday waxaad shareecadu ina fartay ee akhlaaqiyaata meesha lagu mumaaraseeyo meesha lagu dhaqangeliya waa guriga marka waxa habboon qofka muslimka ahi inuu gurigiisa dhaqankaa ku yeesho ixtiraam laba qof oo is-ixtiraamaya inay noqdaan laba qof oo hadal fiican ku wada hadlaya inay noqdaan laba qof oo hadday wax isu sheegayaan si maangal ah iyo wakhti ay suurtagal tahay isu sheegaya inay ahaadaan laba qof oo kala dambeyn leh inay ahaadaan laba qof oo isqadarinaya inay ahaadaan waxa laaliya waxa uu qur-aanku inoo tilmaamay ama xadiista nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamtay ee dhaqan ee akhlaaqiyaata waxaa la rabaa cidda aynu la nool lahay inaynu kula dhaqanno waanagoo waa adagtay ma fududa laakiin waxay u baahan tahay in la mumaaraseeyo waxay u baahan tahay in isku daygeennu bato idan ka warrami mayno xuquuqda maadiga ah inay meher kugu leedahay soomaalidu meherka dee deen bay isaga haysataayoo ma bixiso iska uun kollayba la siin maayo sheeg bay idhahdeen wadaadka uma heri laakiin waa xoolo ay xaq u leedahay weliba waa xuquuq ay leedahay markaa in la siiyo inkastoo innaga curfigeenu noqday gabadhan haddii la siiyo xaqeeda maalay moodo inaan guriga waxbaba ka oolin oo in la leeyahay waad iska sii tegaysaa laakiin xuquuqda maaliga hadday tahay sadaaqa iyo hadday tahay nafaqadii biilkii iyo hadday tahay sakankii iyo meeshii la degayey waa xuquuq maaliya oo qofka lagu leeyahay iyo hadday tahay qismadii haddii ay jiraan zawjaadku wixii intaa ka soo hadhee maadada ka yimaada waa macruufka oo akhlaaq iyo dhaqan islaamiya in la yeesho waxaan rajaynayaa wakhtigii mala salaada waa gaadhaysaa sheekh cali baana baabkan mala khabiir ku ah marka inta ka hadhay isagaan u daynaya wassalaamu calaykum